halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 5 qodob oo ku qasbi kara qofka aad doonayso inuu ku jeclaado. bini'aadamku isku si wax uma jeclaadaan, isku dooqna maahan, balse qodobadan waxay kaa caawin doonaan haddii aad samayso inaad qofka doonto aad soo jiidan doonto uuna ku jeclaan doono. haddaba qodobka koowaad, ruuxa aad doonayso inaad jacayl ku abuurto waa inaad wacdaa xilliga uu jiifanayo, kuna dhehdaa erayo dareen leh si uu u dhadhansado erayadaas macaan ilaa uu hurdada ka soo kacayo. qofka bini'aadamka ah marka uu jiifanayo maskaxdiisa waxay u diyaargarowdaa fikir, wuxuuna ka fikiri doonaa hadallada idin dhex mara labadiina, waxaana laga yaabaa inuu ka soo kaco isagoo isla erayadii aad xalay kula hadashay ka fikiray. haddaba wac goorta uu qofkaas jiifanayo. qodobka labaad, ugu wac magaciisa dhabta ah adigoo ammaanaya, lana kaftan goor walba ilaa uu kaga xiisayo kaftankaada. qofka bini'aadamka ah ammaantu wuu jecel yahay, rag iyo dumarba, siba dumarku aad bay u jecel yihiin ammaanta. isku day inaad jirkiisa xubin oo ammaantid, adigoo hadba fiirinaya xubinta markaas jirkiisa ugu qurxoon oo ammaanta ku habboon. qodobka saddexaad, caawi markasta oo uu garab u baahdo, xitaa haddii uusan ku weydiisan, adigoo dantaada ka hormarinaya dantiisa. qofka bini'aadamka ah haddii aad caawiso xilliga uu garabka u baahan yahay asigoo kaa codsan, weligiis wuu ku xusuusnaan doonaa, mana ku ilaawayo. qodobka afraad, wac goorta uu hurdada ka soo kaco, adigoo ka warqabaya xaaladda labadiisa waalid, ehelkiisa iyo asxaabtiisa. qodobka shanaad, u gey hadiyad kadis ah adigoo lama filaan uga dhigaya, una samee wax kasta oo uu u baahan yahay qofkaas si uu kuu jeclaado. fadlan subscribe saar YouTube channelkan mahadsanid.